waxaan kaga jirnaa adduunka at least 10 sano la soo dhaafay dalka ugu xun adduunka aan ma oran karo iyagu waxay yiraahdaan dalka ugu dulisan laakiin aan ku soo koobno dalka ugu xun macnaheedu waxay tahay waxaan naloo arkaa dad isxadaya iyagu ha ka bilaabato dadka dawladda ku jira ha ka bilaabato dadka shaqaalaha ah waxaan ogahay ganacsatadu waa fiican yihiin weli culture-kii islaamka waa hayaan siyaasiyiintu marka waxaa la rabaa inay taas wax ka bartaan ninka ganacsiga ah ama ganacsadaha ah marka uu qofku wax ku darsanayo wuxuu ku darsanayaa qof aamina hadduu qofkaas hal mar khayaamana magaalada ma soo galaya qofkaas waxay ahayd siyaasiga marka hal mar la arko inuu khayaamay in siyaasadda laga saaro marka anigu waxaan ballan qaadayaa ammaanadaas aad ii dhiibateen oo kan camoolaha ah indhaha la kan dhagaha la ilmahaas aan dhalan weli iyo kuwa hadda dhibaatoonaya oo qaxaya oo abaaruhu baabi'iyeen iyo qofka room kulli ammaanadaas iyagay ka wada dhexaysaa inaan u ilaaliyo ammaanadaas oo qof dawladda ku jira ama magac leh oon ognahay oo ummadaas shilmay leeyihiin ka qaata waxaan idinka ballan qaadaya inaysan dhici doonin arrinta labaad oo aan pledge-kayga ahayd oo aan ballanta ku qaaday oo dadkii ugu taageeran waxaa ka mid ah cadaaladda dalkan wuxuu la burburay oo colaadana noo haysataa oo qabyaaladda iyo shakiga nagu kala dhex jira na gaarsiiyey waa cadaalad darro wey wuxuu sheegay aadan barre ducaale wuxuu sheegay golihii wasiirada la magacaabay waa dhab wey qof walba wuxuu rabaa inuu iska dhex arko waxaa laga yaaba qofkaas inuusan aqoon laakiin uu raadinayo qof qabiilkiisa inuu ku dhex jiro waxaan idiin sheegayaa anaa ugu horeeyo madaxweyne ah anuu qabiil mali anugu nin Soomaali baan ahay Soomaali baa ay dooratay Soomaalidaan u dhaxeeyaa qof aan soo dhaweysanayo qabiil ku soo dhaweysanayo ma jiri doono qof aan qabiil ku fogeynayo ma jiraayo Prime Minister-ka markii aan magacaabayay 3 arrimood iyaan ballan ku galnay midda koowaad waxay ahayd musuqmaasuqa inaan ka fogaano midda labaadna waxay ahayd in maxaan ku yiraahdaa aan wada shaqeyno oo khilaafaadka iska ilaalino tan saddexaadna waxay ahayd in dadka iyo dalka aan u adeegno oo si daacada ugu adeegno macnaheedu waxay tahay isaguna qabiil ma laha qabiilna ka shaqeyn maayo maxaa yeelay wuxuu mathalaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan yu mathalaa waa sax qabiil baa sheeganaya laakiin waxaan kula taliyay isaga inuusan qabiil sheegan golaha wasiirada aan magacaabnay oo aan kulligin taageerin ka rabno oo sidii aad yeesheen marka aad taageereyseen oo aan campaign ku jiray oo xildhibaanada ugu ciiseena waxaan ka codsanayaa wasiiradaas waa sax qaabka aan wax ku qaybsanaa qabiil ah ilaahayna waa naga gudbin doonaa waxaan gaareynaa meel aan uga gudubno oo axsaab aan u gudubno oo laba qof walaalaha ay kala tagaan intaan ka gaarayno waxaan ka codsanayaa intaas wasiiraan waa la hadlay waa la fariistay waxaan u sheegay qabiil ma mathalan qabiil qofkii raba inuu qabiil mathalo waa inuu noqdo kaaba qabiil haddii uu rabo inuu dawladdan ka mid noqdo wuxuu mathalaa wasaaraddaas wuxuuna u mathalaa ummadda Soomaaliyeed saqiir iyo kabiir marka idinka waxaan ka codsanayaa inaad xildhibaanada wacdaan haddii aad iska dhex weydaan ogaada wasiiradaas idinma mathalaan qabiilkiina ma mathalaan markii aan raadinayay Prime Minister-ka yaan dad la hadlayay kala duwan waxaan ku yiri qofkii hadda igu imaanaya inaan u magacaabo qof qabiilkiisa waxaan ballan idinkaga qaadayaa ninkaasaan magacaabi doono inuu waxba idin tari doonin marka waxba hadda ha u loo bigareyn qabiilkiin qofkaasi wuxuu wax u tari doonaa Soomaaliyeed waqtigaas kaga luminna hadhow hay ugu soo noqonina ha oran ninkii waxba nama tarin maxaa yeelay mabda aan ku shaqeynaaba Soomaalinimo ah marka wasiiraduna waa noocaas ku shaqeyn maayaan mana qori doonaan xaq darana kuma qori doonaan qofna ma fogeyn doonaan oo aan qabiilkooda ahayn marka waxaan idinka codsanayaa inaad qof walba oo Soomaaliya waa garan karaa
maxaa yeelay weli xanuunkii waa nahayaa 26 sano oo shakiga ahaa oo kalsooni darrada ahaa oo qofkii meel la geeyaba markiiba uu eriyaayo qofkan ku qabiil ahayn markiiba uu ka soo buuxinayo dadkiisa wallaahi billaahi inaysan dhicin anaa idiin sheegay hadday dhacdana ninkaas wasiir ummadda Soomaaliyeed u noqon maayo marka qabiilkiis meel ha ka raadsado waxaan ballan qaaday oo kale markii lay doortay inaan shacabka la hadlo caleemisaarkii baan kula hadlay waxaan jeediyey warbixin dheer oo aan taabanayo meelo kala duwan hadday noqoto arrimaha gudaha ee dhaqaalaha hadday noqoto ganacsiga hadday noqoto la dagaalanka argagixisada hadday noqoto arrimaha dibadda oo aan ku sheegay annagu waa ixtiraameynaa dowladaha dariska ah waa ixtiraameynaa caalamka iyaguna waxaan ka rabnaa sidaas oo kale inay ixtiraamaan oo na tixgeliyaan oo nala shaqeeyaan speech ballaaran oo ummadda Soomaaliyeed aan kula hadlayo ahaa waxaan ballan qaaday inaan keeni doono ra'iisul wasaare hufan oo wanaagsan muddo 15 bari dhexdooda ah yaan ku magacaabay meesha dastuurku uu ii siinayay inaan ku magacaabo 30 casho runtii waa markii ugu horeysay intaan ogahay 15 casho gudaheeda lagu magacaabay ra'iisul wasaare isagana waxaan kula dardaarmay inuu 15 casho gudaheeda ku magacaabo golihiisa wasiirada laakiin qabiiladii baa dhibay marka waxay ku qaadatay 21 casho markaas waxa la leeyahay waa daahdeen maxaa yeelay madaxweynuhu wuxuu leeyahay 30 casho inuu ku magacaabo ra'iisul wasaare isagana wuxuu leeyahay 30 casho oo kale inuu ku magacaabo golihiisa wasiirada waa 60 casho waxaan ku magacaabnay 15 casho oo tayda ah iyo 21 casho oo tiisa ah markaas dadku waxay leeyihiin war maxaa qabanaysaan war ma hore u socotaan marka waa dhab weeye waxaan ku jirnaa waqti urgent ah sense of urgency aan ku jirnaa waqti badan baa naga lumay waxaan rabnaa waqtigii lumay inaan dib u soo celino sidaas darteed ilaahay wuxuu nagu guuleeyay inaan dadka aan ku xulanay anigu dad badan oo waxa jiray asxaab aan ahaa oo jeclaa laakiin ballanteeda hore waxay ahayd inaan ka shaqeeyo danta dalka iyo dadka qof kasta oo siyaasi oo yiraahdo warniyo ninkan iga qabana aniga hay fiiriyo hal qof oo saaxiibaan ah meesha kuma jiro marka sidaas runtii waxaa noogu suurtowday inaan magacaawno dad wada hufan oo wada jaamiciyiin ah oo kulli khibrado wada leh ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu hawshooda u fududeeyo waxaa laga rabaa ma aha in la ansixiyo kaliya waxaa la rabaa dadkaas in lala xisaabtamo oo haddii ay shaqayn waayaan mooshin yaan la odhan laakiin maxaan ku yiraahdaa constructive criticism waxa la yiraahdo naloo soo guddoonyahay wasiirkaas dhalilahaas uu leeyahay waxaan ballan qaadaynaa wasiirkaas hadduu toosi waayo inuusan nala sii shaqayn maxaa yeelay annagu waxaan ku shaqaynaa danaha shacabka Soomaaliyeed iyo danta guud yaan ku shaqaynaa ee qof gaar ah aan danihiisa u fulleena ma jirto walaalayaal ilaahay amarkiis waxaan idin sheegayaa wax yaab leh maalintii aan magacaabnay golaha wasiirada maalintii ku xigtay roob baa bilowday oo weliba gobolada waqooyi ka bilowday maanta iyo shan waxa la sheegay meelo badan oo ka daay marka waxa laga yaabaa golaha wasiiradu inay khayr la yimaadeen idinkana ducada noo badiya in ilaahay uu na qaboojiyo roob badan noo keeno si dhibka ina haysta abaaraha ah uu naga dulqaado iyo colaada weliba waxaan runtii rabaa inaan u mahad celiyo dowladda Kenya iyo madaxweynahooda iyo shacabkooda sida diiran oo wanaagsan oo runtii anaga iyo wafdigeen noo soo dhaweeyay runtii waxaa meeshaas ka muuqata inay diyaar u yihiin in la furo page cusub oo ku dhisan mutual interest and equal footing macnaheedu waxay tahay dad isxushmeeya runtiina diyaar u ah inay wada shaqeeyaan ku wada shaqeystaan iyagoo danaha dalkooda eegaya maslaxadda dalalkooda eegaya inaan isku soo dhaweyno maslaxadeena oo ay kamid tahay inaan furno xiriirkii isweydaarsiga dhaqaalaha inaan furno taasi waxay keentay madaxweynihii shalay aniga isaga inaan press conference sameynay uu ballan qaaday in uu furo diyaaradihii isaga gooshayay tooska maxaan ku raahdaa ay ahaan jirtay xamar iyo Nairobi in dib loo soo celiyo
وكحوم مع دتك رواجير وحلاقيها وحوجها economic hardship إنه كله عو لكن رنتي دتك سومالي دوار رفادين محايا لو حين مرين أجنس أجني مرين يدب مرين إنه يسوم مران وجير أين مران the same process مران مركي يجي مدان نيروبي مركا تاس وحي فوضينسا إيش صعد كا يجنع سجا لبض دلو أنت أسوي حادر إن أن اسوي دار سنو رنتي أقونتا iyo tababarada iyo maxaan ku raahdaa iyo waxyaabo badan inaan isweydaarsanno sida la sheegay xuduudkii waa furnay oo dadku waa soo gooshayaan ganacsigu waa labada dhinacba waa saga gooshi doona haddii Ilaahay yiraahdo marka meeshaas runtii waxaa ka soo baxay oo aan sii xoojin doonaa insha Allah xiriirka labada wadan oo runtii ku dhisan saan sheegay maslaxadda labada dal oo xushmad leh taasna waxaan aaminsanahay iskama iimaanay waa hawl aad qabateen horay oo aad uga shaqayseen maxaa yeelay afkiisu wuxuu iga sheegay Soomaalida halkan joogta inay yihiin dad fiican oo sharaf badan oo runtii dalkan dhaqaalihiisa kor u qaaday oo dad shaqaysta ah yuu sheegay marka taasi macnaheedu waxay keentay inuu xushmeeyo dalkii aad ka timaadeen waan uga mahad celinayaa majority leaderka aadan ducaale iyo ragiisana aad iyo uga shaqeeyeen runtii hawshan inay fusho oo hawshan ma ahayn hawl iska dhacday waxay hawl hore looga shaqeeyay marka waa kaaga mahad celinayaa ganacsatada Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaalow dal aan dhaqaale lahayn ma shaqeyn karo anigu waxaan la imaanayaa amaanadii inaan la tartamo dalka ugu hufan oo ugu fiican oo la yiraahdo Denmark yaan rabaa inaan la tartamo markay noqoto hufnaanta meesha aan kaga jirno 176 wax naga hooseeyo male marka waxaan isku dayayaa meel kore inaan keenno si aan u keenno hadda waa inaan helno dhaqaale aan maamulno ganacsada waxaan ka codsanayaa marka rugta ganacsiga halka nala jooga iyo ragga naga maqanba inay dawladda taageeraan oo awal hadii shaki ay ka qabeen wixii ay dhiibaan in meel kale la marsiinayay ballan baan kaga qaadayaa dhaqaalahaasi in sidii ay tahay in loo maamulo oo qof shakhsi ah uusan si xun ugu takrifan laakiin de maxaan lagu xisabtamayaa haddii aan waxna loo dhiiban waxaan ka codsanayaa ganacsatadu inay u hormaraan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inay canshuurta bixiyaan dalkan budgetkiisu aad ducaale ay sheegay wuxuu ii sheegay $100 bilyan oo dollar weey sanadkii bisha dawladooda meesha anagu ay ka tahay inaan sheego ma rabo $300 milyan oo dollar marka waa dhaqaale runtii lagu maamulo hal iskuul soo garan yaan rabnaa waddan inaan ku maamulno macnaheedu ma ah dhaqaalaan inaan hayso dadkii baan bixinayn canshuurtii dadku haddii canshuurta bixiyaan oo dawladooda kalsooni siiyaan oo ay aaminaan waxaan aaminsanahay dhaqaalehen inuu gaari karo 20 bilyan iyo ka badan 20kaas bilyan oo la xalaynin way ka baraka badan tahay 100 bilyan marka saan aaminsanahay marka ganacsatada waxaan ku boorinayaa ilaahay dhaqaalaha idin badiyo waxa haystaan waxa ilaahay kugu daro laakiin in dawladdiina aad maxaan ku raahdaa wixii ay ka mudan tahay oo canshuura aad siisaan waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliya marka dalkeenu waa dal kheyraad badan waxaad arkaysaan oo loogu dal wareegayo macna darima wax badan yaa Soomaaliya yaala Soomaaliya waa dal qani ah haddii noqoto oil and gas haddii noqoto mining haddii noqoto waa wax dhulka hoostiisa ku jira oo haddii aan aqli la imaano dawladda dadka Soomaaliya imaanaya oo investment ku sameynayana waa inay helaan dawlad aamina ogaada dawlad tuugaha cid wax ku darsanaysa ma laha waxyaabaha ugu horeeya oo adduunka ku soo jiidaya investment waxa kamid ah dawladdan corrupted miya corruption kan waxa keenaya qof iimaan la oo aan patient lahayn oo aan sugi karin waddanka horta inuu qani noqdo oo raadinaya kat wax la yiraahdo iyo commission fee qofka markuu arka marka la yiraahdo kat keen wuxuu leeyahay meeshan haddaad billion geliso hadhow maxaa lagu weydiin doonaa war waxaan waa tuugay waxba iska gelin meesha
laakiin markuu arko in fakarka uu aaminsan yahay oo dowladihiisa ku shaqeeyaan uu ka dhex arko wuxuu leeyahay dalkani waa dal aad aamini karto systemka hadda aan bilownayna oo dimuqraadiyadda ahna waa haysanaa oo dee rule of law-ga ah oo la isdacweysan karo adduunka la isku dacweysan karo marka haddaan la imaano ammaano iyo dimuqraadiyad oo clean ah uusan qofna design garaynayn election si ugu soo noqon lahaa midda kale aan idiin sheegaya waxay tahay anuma design garaynayo sidaan kusoo noqon lahaa maxaa yeele 4 sano inaan noolaan doono kale ma aqaano waxaan se ogahay maanta inaan shaqayn karo maanta shaqadan qabto haddii aan kusoo noqon karo waa alxamdulilah haddaan kusoo noqon waayo qof iga fiican la helana waa kasii fiicanta laakiin qof design garayn kara election ma jiro waxaan ka shaqaynaynaa dowladdeenu inaan maanta shaqada qabanno noo taalla berri ma ah berri waa balaan garaynaynaa waa qorsheynaynaa laakiin shaqada maanta aan qabanaynaa marka shaqadaas waxay noo liid garaynaysaa marka dadku inayna aaminaan caalamkuna ay wax nagu darsadaan saas darteed caalamku markay investment keenayaan muhiimku waxay tahay inay kaa dhex arkayaan inaad tahay aamin dowlad clean ah oo transparency leh oo accountability-geedu meesha ugu sarreysa u yahay dimuqraadiyad iyo sharcina ku dhisan labadaasna dee waa labadii aan u dhaaranay oo aan dhaarta u marnay oo ay tahay khasab inaan fulino dalkeenu waa qani waxaan idiin sheegayaa in ummad Soomaaliyeed ee gaajo u dhimato ama cunto dibadda looga keeno runtii waa dadnimo xumana haysata waana sharaf xumo iyo magac xumo runtii aan leenahay wey Soomaaliya waxay leedahay markaan idiin sheego 8 milyan oo hektar oo aan u baahnayn fertilization best aan u baahnayn wax maxaan ku yiraahdaa dhulku waa fertile weeye uma baahna in sun iyo bacrimin uma baahna bacrimin uma baahna marka waxaan ka beernaa oo kaliya wax ka yar 100 hektar 8 milyan diyaar ya noota oo labadooda dhexdooda ah oo diyaar oo hadii mirihii lagu tuuro hore ay ka soo baxayaan waxaan leenahay bad aad u dheer iyo sidii shalay uu sheegay maxaan ku raahdaa qof baa sheegay madaxweyne ku-xigeenka yaa wuxuu lahaa waa meesha kaliya badda Soomaaliyeed ee malaygu uu doqonnimo ku dhinto meel kale adduunka malay doqonnimo kuma dhinto dadkeenana gaajo u la'aanayaan marka waxaa la rabaa malaygaas intuusan doqonnimo u dhiman inaan adduunka u suuq geyno waxaan leenahay xoolo fara badan intaas marka la dhaafo haddaan caqli la imaano dalkeena macdinta ku jirta wax caadi ah maaha meesha strategically adduunkan kaga naalana meel adduunka nala mid ah ma jirto waxaas oo dhan waxay nooga halaabayaan runtii dowladda la rabaa inay tahay dowlad hufan oo wanaagsan oo capacity la timaada iyo shaqo wanaag la timaada oo waxaan cudurkaas uu sheegay aadan ducaale oo qabiilka ah wax jira ma aha ana idin sheegay wax jira ma aha haddaan baadi uga soo tagno magaalo nimid waxaan rabaa inaan sidii caalamka iyo adduunyada horumartay ay u nool yihiin inaan u noolaano oo aan ku shaqeyno war yaa noogu wanaagsan yaa wax qaban kara yaa noogu daacadsan yaa ilaahay ka baqaya laakiin haddaan ku qaadano intuu caali cun lahaa intuu caali cun lahaa baaniyaal cun lahaa cali habeesaysto intuu baaniyaal cun lahaa cali habeesaysto macnaheedu waxay tahay kan kugu doqonsan noole oo wax sii haddii qof doqon ah oo wax matara ah oo tuuga kuma nooleyn karo maxaa yeelay isaga tiisii gabayba marka annagu waxaan ka ballan qaadaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo inaan sidii aad nagu doorateen 4 sano soo socota inaan waxba iska bedelin insha allah waana la caayi karaa waa dhab dadku mid maaha dad aan fiyoobeen yaa nagu dhex jira oo qaarkood dowladnimada si kale u fahamsan ama si kale wax u arka annagu ma diidayno criticism waa okay wax dhibaato ah annagu ma aragno weliba waxaan u arkaa inay tahay wax lagu saxaayo markaa og tahay adigu in wax lagaa sheego waxaad leedahay war waxaas ama wax ka jiraan balbaar dhib uma aragno ugu dambeyntii waxaan idinka codsanayaa walaalayaalow aan isu gurmano aan iscaawino dadkan baaba'aya Soomaaliyeed oo abaaruhu haligeen oo dhibaateeyeen oo xoolaha ka dhameeyeen waxaan idinka codsanaynaa jeebabkeen u furno qof walba wuxuu awoodi karo uu ku tabaruco
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.